السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالوين دمانتين وإذن سلام يا ملول الودين كجوبتان أصحابي اسكسو نقد وناكسن محل دي تشري محل الله يسعدو هذا مالمهان وحوا مارتي ما مدوبين ودي بسكومين صنقونين مشغول كدون كاسك بدن أصحابي محل الله هاي ولا الله أنجعل هاي مارتي أنا سكو حرنا هاي channel kayga ku xiran soo dhawaadaan ilaahay mar walbo asxaabta qiimaha iyo qaayaha mudano asxaabay inta kadib maanta yaa ila jooga dad qaali ah ila jooga maxaa la jiray walaalahay aan jeclahay waliba laba qof oo nagu cusub yihiin waa abshu iyo khadaro inagu cusub yihiin walaashii nimcayadu asxaabta tiimooda jirbay maartay kasii tirsanayd nadu wali inkastoo channelkayga ay kasoo muuqanin marka soo dhawaada kale laba idin soo wada dhaweynayna maxaa la jiray khadar aan ku horeynaa khadar soo dhaw saaxiib asxaabtana salaam horta waan salaamin muddo koowaad magacaygu waa khadar waxaan ku faraxsanahay inaan kasoo muuqdo channelka Somali Voice TV kasoo muuqdo u faraxsanahay aan dhawahay ولكن معه ما سنتهاي محاوسي بدي نمعو دولي channel كان صمودان channel الله كان بكوريس لكن waxaa ku nacday la garan dhimal hadda ay asxaabta horta walaalkii deeqa ma santahay sida noo doorsis qurux badan asxaab waa la salaamay marka horeeto soo dhawaada maxaa la yeeshay kan nolol kala kiciiniga wax idin ku nahay soo adiga soo dhawo waa dhawahay asxaabta deeqa waa salaamay snolade maxaa xogaa hal iyo labo deeqa ma barnaamijka maxaa noo wadaa maxaa la yeeshay walaashi macaan waxaa idin wadaa labo qodob oo maalmahan adugu social media ku jiray wuxuu soo hadlaynaa aan kasoo daahnay laakiin mid uu cusub yahay midna uu yara tegay laakiin waa ka daba tegaynaa dhimal waa ka daba tegaynaa marka labada qodob waxaa waaye arrintii catoosh yare iyo زاد بوبات لكن ما قصد عنه إنه محيي social media سبب الحياة كستو أنا كسر دهني لكن فكرنا كدي برينا مدة كلام محاوي مدة هتتاجر ده على سوي الكاس صح بنبض بحيث إنه أنا شايف واقعين ضمنا مركا صحافة محلي تشري لبضع قلب عرفنا كهذا الله مركا سود هذا نحكي هذا مركا نمر أنت وأنا كون رأيته حمرت كهذا لها أنت عطوشيرة تاسع ما تحسنا كهذا مكة وحلي هرتو عطوشيرة أنت كسلامنا مكة محل هاي شيء كرتو الصومالي أنا قدر الصومالي أنا هاي في محل هاي شيء ولس حق رأي إنه محل هاي شيء لس بهدله مكة عطوشيرة وحلي هرتو رؤوس عو إن سيدو كل تدمشي وسلامة يا بس كمان نوع محل هاي شيء أورست إلى هرت الاسكو منعه ما تلبس إن الاسكو حقري كيك لتماهن اللي أنا محل هاي شيء أنا قوي لهي بنا وده أوره هدو هذه النحلة اللي حد لا يكون دمستري أسوي الحديث اللي حد دمستري قبل أنت موشي خلاص محل هاي شيء صومالي ده واحد بيكد يجيبنا يعني ودي وحيار بدل يكد حنايا مركب محل هاي شيء هرت قبيل كسو إلى وحوس صار الاسكو كل قرتمو شيء إنه محل هاي شيء الاسكو نعلو مسو صار فهمت مركب حديلا قبيل كس وهدو قبيل كل شيء هدي قبل وقبيل كذا تلوذ وأن سومالي من هدو مر محل هاي هاي أو دين الإسلام أو هايستو أو إلهي جيسو كعب صنايع ما أهن إن قبيل يوحص لو دورتو أن قرطو قف دين تأيي محل هاي شيء إلهي وأمين سيء وأنا اللي قرصن كراي الله يعني خضر وضيع نكسدو كنا نعرفتاس لما قلب واي مثل معناها بداية هذا البتاعات أنا وحكان لما أنا يوريس عطوشيرة ما حرمنا هم سنة وكذا صح horta si sheegtay in loo heshiiyo horta wax jiro horta marka catoshada horta manaha adduun wax isku keenay in manaha waxa waaye inay wax isku aqaano wax isku bartay adduun wax isku keenay manaha inaad manaha guursado guur kadib manaha mala sideenday manaha isma dhaho قبيل هالسكو دور لما دهين وحاول سنة النبي إن السكوسدو ما لكن قفك إن لو بوسدو محل أي شيء صح قرآنك أبو شيء لا أبو شيء يعني قالي سيدا وناكسنة ما الفكرة دي نودي بتيم وكم هسنتين
maadaama ay magaceeda dhiman tahay abshu eedan fiiradeeda waan ka sugi doonaa laakiin aan ka horeeyo asxaabay mar labaad iyo mar saddexaad horta soo dhawaada waxaan rabaa arrinta hadda aan ka hadlaynay catoosh yare maxaa la dhihi jiray soomaalida horta meel weyn bay ogaga dhaceen waan raaligelinaynaa war walaalo macaan walaalahow waan ku salaamaynaa midda kale waxaan leeyahay soomaalida horta waa dad xun waay waxay ku xumaatay dheh yacni waxay ku xumaadeen dadkooda way liidaan ma garanaysaa dadka kalena maaragtay kor bay usoo qaadaan catooshare hadda waxaa lagu haystaa reebaar waaye ama macnaha ooji waaye ama jareer waaye macnaha saddex aab anaga ma jeclaysanina inta qabiilkeena laakiin waa sida soomaalida hadalka ay dhigayaan mugta saasay dheheen ma garanaysaa catoosh waa wiil soomaali ah ilaahay intuu siiyey quruxna uu leeyahay yacni islaamna waaye oo waa nin tukado oo shahaadanaya marka meel laga caayo ani maba garinayo ma garta xaabay marka sidaas weeye catoosh meel ay maaragtay foolxumo kasoo gasho ma lahan hadduu qofku mar islaan yahay diinta islaamka haysto shahaadanayo haa tukanayo dee meel ka farxinya ma lahan marka mar walba uu quruxsan yahay aan tusaale ahaan soo qaato soomaalidu haddii maxay heday laga hadlayo xitaa ama waa jareer ama maaragtay laga hadlayo yacni soomaalida markay imaadaan hadda waddankan aan joogno ee Kenya waddanka dee dadka iskale ama maaragtay dee waa dad maxay heday dee jinsiyadda catoosh ba ka quruxsanba hadalka ka dhex galay maxaa la ishay horta gabdhaha Soomaaliyeed waa aragtay hadda cadaantii waxa la guursanaya hindida la guursanaya nin Soomaali shahaadana iska badaa warkiisa wax laga caayo maanta mise lagu tilmaamo ma laha laakiin dadka cadaanka u galay ma la caayo fadaali maxaa loo caynaya muslim oo maxaa la ishay gabar guursan marka aan ka hadlo aan hadalkay sii wato marka yacni markay hadda waddankan imaadaan yacni dadkan madowga ay u imaadaan way u istaagaan macnaha hadduu hadal yar la hadlo way kala badbadanayaan ya waxay yacni inay la hadlaan bay jecel yihiin macnaha qofka Soomaaliga hadda laleeyahay waa jareerna waa la yasi ay ugandiiska markii loo tago ayagana sidoo kaleeto ama waddanka ay imaadaan ayagana sidoo kaleeto maaragtay maxay hayday waa loo kacaa ayagana maxay hayday xitaa dad baa guursaday ugandiiska iyo burundiyaanka iyo kenyaankan ba xitaa maxay hayday hindida la guursanaya gabar Soomaali hindidu xitaa hadday u raacaan macnaha dad macnaha cad waaye hadday u raacaan dhib ma lahan laakiin dadka madowga hadda ka hadlaya macnaha oo jareerka macnaha oo timaha adag ma garanaysaa markii la liidayo yacni dad aan islaamba ahayn yaa fadhiga looga kacaya oo jareer ah yacni dad islaam ah oo maxay hayday diinta islaamka haysta oo wanaagsan oo waddanka ku dhashaya markii la liidayo xagee la socda war Soomaaliya horta dhaqan xumadan iska joojiya waxaan hada wadaan maartay faquuqa iska daayay hadda wad aragteen adduunka hormaray macnaha waa isku wada tixgeliyaan qof walba si yahay lagu tixgeliyaa oo maartay qof maartay jinsiyadiisa lagu caayo ma jirto way hormareen oo aragtay hadda macnaha inta ama ciidan ay haystaan ama dhaqaale ay haystaan dee maanta looma geli karo Mareykan iyo maxay hayday Ingiriis iyo maxay hayday Kanadiyaanka iyo waxaas oo dhan waxay qaateen dadkan dee wadamada laga aruursado marka taasna waxaa weeye in uu waddanku u baawar yeeshaa la rabaa macnaha laakiin dad yaroo maaragtay maxaa la dhihi jiray walaalaha ah oo yacni maxaa hayday waddanka kugula dhashay haddaad liido xagee u socotaa qof kale maba kansinaysa soomaa kuwii kuu dhex jiraa saaraysaa deeqa catooshare intiisa uga baxnay marka maxaa Soomaali weyn yaa isxaqeen labada qof oo maxaa la isguursatanay in loo duceeyo la caayo ma mudno marka catooshare arrintiisa saasa uga baxnay saasa leh marka magaceeda weydiinayay maxay ka aaminsan tahay abshu maxaa ka aaminsan tahay arrintaas waxba kama aaminsan catooshare waa wiil walaalkeena ilaahay ayaa umay markaas xaawiya laga dhamaado Soomaalida maxaa ku dhihi lahayd Soomaalida dee waxaan dhihi xabsanaysaa caadi maxaa asxaabta ya okay fikradaha aad ka aaminsan tihiin maxaa la sheegay dadka dhexdooda iska daaya wiilka maxaa laga foqo haniya uga foqo marka tashiir halaas ay uga gudbayna arrinta waxaan bilaabaynaa maxaa la daara ala soo محل داير على سوق كبتي سلام حيران كرو محل إن ما أنت محل السوشيال ميديا وسوي فريستو وكل شيء داير إنه ماشي وسوي فريستو ضد قصة عاية هرتو عيبتي اسمها وعادي سمره رب العالمين سهد في العين إن بدن إن قصة عن في صدق ومحل هاي شيء هدي هذا هو ما رئيس إنه ضد كل دقو مرة ريتها إسقاقبس اللي بدن محل هاي شيء كل شيء بس إنه قصة عايتمه مرة ريتو بالعالمين مركو حدي له محل هاي شيء نمع جوكر ناس
difaac bay haysataa qaysa waxay uga dhigtay maxaa la ishay hormar ha dhufaysay ka dhigtay macnaha maxaa la ishay inkastoo way ku saxsantaa oo maxaa la ishay dumar una la tartami karin maanta nin rag inay cayso meel uu fariisato laga fiican yahay si fiican ay yeeshaan leeyahay maadaama ay iska hor dhigtay qays oo ay ka dhigtay qays inuu u jawaabo maadaama iyada dumar ay tahay u jawaabi karin marka waxaa leeyahay maxaa la ishay korta arrintaas horta iniga maxaa ka leedihiin fikirkiina ka dhigtay خبر محكنا أرنتس أنا كهربية أوكي هرتا أصحابي واحد مع المهن صدقته ويا إن أنا حفهم وين واحد نور سوى الصواب لنصور ناس عيني إني قبل أسبوع عرفت فهم سوش فيديو تقولي لو نروح عند سكول ما تستفادنا كميس يعني ضد مش عاين وما لك مركب حلو فهم كرنيسان إن الصوت تشتغل لوني يسوع عين معنا يوتيوب كي تيك توك وحكيها لك iyo xafal TikTok isku qabsan jiray العربي والصور guriga hata isku tagaa la sirfaariye marna boqoradeeda la soo leeyahay marka waxa amal waa la isku kala marka waxaan fahmay way magaranaysaa in arrintan ay runta iyo in la isku shito marka balan ka dhaha bal haday isku shitahay inda war hore u socdo hadii laakiin ay dhabtahay baan rabaa inaan maarto wax ka dhaho ha marka horta daayir calisho waa iska dhib badan oo mar walba dadka horta Soomaaliyeed kolba mid busaarin yahay marka qabsan horta ma la karam socodta mucrika waa inuu dusha qof ka saarnaa waxaan la sheegay YouTube-da ka dhaxlaa leeyahay warniyo bal YouTube-ga iska yiri adaan qabsanay bal ka dhaxlaa ma garad maxaa la jiray marka ninka horta iska dhib badan yahay daayir calisho intaan aanu social media ku soo biirayba daayir calisho dad haystay waxaan bartaan ma 2015 yaan bartay 2015 kina soo ninku dhigama martay macna cod aan ka dhageystay telefoon asoo cod ku jiro daayir calisho live marka uma aqoonin yani cod telefoon ku jiro yaan dhageystay markaas nin la dhigi jiray Soomaaliland oo Cabdigood la dhahay ku dhignaa waaga markaas aan dhageysto marka codkiisa intiisa dambe gudbin oo daayir calisho waagaas aan bartay asoo qof ku dhigan oo bartay ilaa hadda sidii uu dhigay marka horta nin musiibadiisna uu wataa marka waxaan leenahay waliba haddana khad xun buu galay gabdhaha horta Soomaaliyeed in la caayo maahan oo gabdhaha maartay social media lagu khalkacsado aniga ka soo horjeeda wax fiican markii gabdhaha Soomaaliyeed dahab waaye in la ilaaliyo bay u baahan yihiin maartay in meel kasta lagu caayo maahan qabiilkana in maartay asagana la qoota maahan qabiil qoota waa inuu maleynaa daahir calisho qabiil buu meesha ku hayaa qabiilka sidaa horta taabal ka xisho mid kale gabdhaha ilaali mid kale gabadh hadana la qabo iyadna ceeb waa in la caayo waa wuxuu rag isku dilo waa marka daahir calisho waxaan leeyahay bal horta gabdhahana daa la qabo gabadhana caayin dadkana de amaan siiniyo mid kale ilka casaan isna raba inaan saa yar dhaho ilka cas horta waa nin maxay ahayd horta gabadh laga caayay oo de nin gabadh laga caayayna dagaal cod iska daayay qorbi waagi hore Soomaaliya isku dhifan jirtay marka hadda waa la yar ilbaxay oo de cod bal isku soo garbaashaya laakiin ilka cas codkiisa maalinleedu waxa ku jirtay arrin dambi ahayd oo waliba yani gobolka xitaa ka soo jeedo dambi ka gala oo uu yiri masaajid kuma yaal subxaana walaalka casooniyo taawad ku qaldan tahay sida ninka si kale iskaga celi laakiin maxay ahayd meesha masaajid kuma yaalo macna meeshan ka imaado afdheer masaajid kuma yaalo aflagaado waaye iyo diinka bax macnaha dadka Soomaaliya degto oo maxad dad islaamada degan ma ahan in maxaa la isha golacayo oo la dhaw maanta masaajid kuma yaalo ceeb waay macnaha boqol masaajid ku yaalo kuwa hadda socdo dhismoodii aan anigu hadda ogaade iyo kuwa dhisan buu ku yaalo war markan niyo islaamka si kale iskaga celi dambaabka iyo gobolka aad gaalaynaysid iska magaalada annagu marka la masaajid kuma yaalo warnaga daadeniyo gaalnimada mise waad soo yar cabtay oo maarta xogaaba soo ka batay ilka caso maya ka basha maahan in maxaa la sheeg mar hadii oo la caayo xiladiisa waa masti in maxaa laha hadii si kala muudan ma daayir calisho wuxuu joogaa filim mehed filim buu joogay iska celiyo ugu tago sax si kale isku raadsada laakiin kuma yaalo bootan u arka ma garanaysa waraa niyo feeraha ilaahay ku sii oo daayir calisho meel daayir calisho qaadi kartaa karbaashka si dadka loogu soo karbaasho waa dagaalka karbaashaha ugu dee ninka maxay heeday meelaha ka carar soo baxda ku haynini hargeyl casow dee arrinta jooji maxaa la dhigi jiray marka waan ka salaamin magaciisa adigana maxaa ka dhihi lahayd ani wallahi horta saa sheegtay deeqo horta waa macnaha mid jirto waa mafahant ninka daayir calisho waa horta wixiisa waa horta waa caadaan dhihi karaa because qof walba waqti walba wuxuu ku dhegan yahay macnaha dad ma ku dhegan yahay mafahant marka
ninka ilka casaan wataa ma fahanti ninkaas taageer weyn u ahay ninkaas waxaa leeyahay nin naga soo gabagabeeynayo intaas ka soo dhamaystiran le daar cali soo gabagabay intaas ku soo gabagabeynaya hay maxaa ka leeyahay ninkan hal iyo labo horta ilka casaan ma taageeri daar cali soo taageertaa daar cali soo taageertaa umaleena macnaha عايده كنت تاغيرتا ما جبرين نوعاي qof walba fikir buu leeyahay sax waa ilkaas waad nacabtaa waa nacba ilkaas waxa ku nacda walaale no inta ka gaarsiina macnaha muuqaalka inuu gaaro laga yaabo muuqaalka inuu gaaro laga yaabo ilkaas ma bijacli ilkaas aniga ma taageertid miya هاي اوكي اصحابتي شرف لي انت انا كسو غبغبينينا برنامجكينا حلال كفتن حلال وانكرباش حلال انت محل ايش حمان ورقتو اسعفينو marka maxaa halaas waa barnaamijkeena halaas ku saabsanaa okay asxaabtayda qiimaha qaayaha mudan igala barnaamijka igala qayb qaadatay waa mahadsantiin kuwan daawan doona sidoo kale taagana waa u mahad celinaynaa asxaabta waxaan leenahay isla socdo wanaagsan kuwan ugu cusub waxaan leenahay subscribe ka noo saara like comment share naga ilaawina debriyan hoos ban jirnaa kor noo soo qaada bye bye